kuwo ku hadaaqaya ama abuura xumaha ee aan ka shakiyin hoogga iyo halaagga iyagoo aaminsan in weliba haybad lagu gaaray karo sidaas allah subxaanahu wa tacaala uma rumeeyo riyadooda aamiin ayaan leenahay shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal waa inaan labadaas dhawaaq kala dooranno oo shacabkeena nabadda u doorno weliba dhammaanteen aan ku naaloonayno muxaafad iyo mucaaradba midkaan nahayba meeshaas waa dawga nagu habboon inaan marno waa dhawaaqa horumarka nabadda dimuqraadiyadda iyo dowladnimada suuban walaalayaal kalfadhigeenna toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waa noo furan yahay alhamdulilah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh guddoonka labada aqal ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka mudanayaal iyo marwooyin maanta waa maalin weyn oo ilaahay looga mahad celiyo inaan soo gaarnay furitaanka kalfadhiga toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaana ilaahay subxaanahu wa tacaala ka baryaynaa inuu baarlamaanka ka dhigo mid lagu xaqiijiyo qorshayaashii dheeraa ee aad u dejiseen baarlamaanka markii la idin soo doortay iyo kuwii dhowaa ee aad horay u soo xaqiijiseen ama ku xaqiijin doontaan kalfadhiga toddobaad ilaahay idankii walaalayaal mudanayaal iyo marwooyin waxaa marka hore aan bogaadinayaa hawsha baaxadda leh ee baarlamaanka soo qabtay muddadii 6 kalfadhi ahayd laga soo bilaabo doorashadii hoggaanka baarlamaanka doorashadii hoggaanka dalka iyo ansixintii xukuumadda jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxa uu baarlamaanka 11aad qabtay howlo badan oo hortabin u leh dhismaha dowladnimadeenna ha ahaadeen ansixinta sharciyadii suurtogeliyey in deyntana laga cafiyo iyo horumarinta dhaqaalaha dalka kuwii la xiriiray dhismaha hay-adaha nabadgelyada iyo difaaca dalka kuwii xoojinayey xiriirka iyo iskaashiga aan la leenahay caalamka iyo kuwii qaabeynayey howlaha adeega bulsho ee aanu matalaadeeda iyo mas-uuliyaddeeda halkan maanta aan ku fadhino baarlamaanka 11aad waxaa sharaf iyo ammaan u ah inuu ku dhiiraday qabyatirka dastuurka oo ahayd howl la dibdhigayey laga soo bilaabo baarlamaankii 9aad waa taariikh xusuus badan u reebi doonta jiilasha soo socda ee ummadeenna inaad tihiin kuwii ku dhiiraday dhammaystirka dastuurka taariikhdaas oo aad iyo aad loo qori doono ayna muxuu ahaay xusuus weyn u reebi doonto jiilasha soo socda haddii aan la yidhaahdo waxaan rajaynayaa in kalfadhigan lagu dhammaystiro qabyatirka dastuurka qaybaha harsan waxaa hawsha dhammaystirka dastuurka garab socday taabagelinta shuruucda iyo hay-adaha lagama maarmaanka u ah qabashada doorashooyinka qof iyo cod iyo iyana qof iyo cod oo iyana noqonaya taariikh cusub oo taariikh cusub uu qorayo una nasiibna u yeeshay baarlamaanka federaalk ee soomaaliya walaalayaal taariikhdaasi muhiimadda ay leedahay waa inta ay jirto iyo soo jiritaankeeda 57 sano ka hor ayaa muwaadiniinta soomaaliyeed waxay fursad u heleen inay qof iyo cod sanduuq ay ku ridaan 57 sano ka hor su-aashu waxay tahay yaa codeeyey oo maanta weli codayn doona waxaan u malaynayaa dadka soomaaliyeed ee u badan dhallinyaro in ay fursaddaas aanay helin intii ay soo joogeen laakiin maanta ay timiday markii ay heli lahaayeen waxaana suurtogeliyey inteeda badan waa baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya waxaa sidoo kale aan bogaadinayaa howlaha baarlamaanka ee sixidda iyo korjoogtaynta xukuumadda iyo la xisaabtankeeda oo waajibkaadka dowlad dhiska qayb weyn ka ah mudanayaal iyo marweyn haddii aan u soo gudbo xaaladda dalkeenna waxaa habboon inaan milicsi kooban ku samayno siduu xaalku ahaa 3 sano ka hor markii aan xilka qabanaynay oo baarlamaankan la doortay waxaan la soconnaa
in khawaarijtu aysan lahaa jirin magac sharciga islaamku qabo oo loogu yeero culimmadeenna oo wada jirta ayaa ku magacaawday khawaarij taasoo macnaha ay diinta ku leedahay la wada garanayo waa tii khawaarijtu ay baadda iyo canshuurta beenbeenta ka qaadi jirteen meherad kasta iyo xataa qofkii gurigiisa derbi ka dumay u dayactiranayo waxaa baabuurta caasiyaasha ah ay safaf dhaadheer u geli jireen inay dadka u daabulaan toorotoro iyo arbacow si ay iskaga xaadiriyaan maxkamad beenaadyadii khawaarijtu ay meeshaa ku lahayd madaxana waxay u raarici jireen xukunkooda baadilka ahaa maanta waa ilaahay mahadii arrimahaasi inta badan waa dhammaadeen maanta xaalka dalku waa ka duwan yahay sidaas inkasta oo ay noo dhiman tahay guusha kama dambaysta ahayd oo guusha kama dambaysteed aan gaari doono insha allahu mar dhow maanta khawaarijta iyo madaxdooda waxaa lagu beegsanayaa meelo aad iyo aad u fogfog magaalada caasimadda ah waxay ahayd masrax ay ku jiraan argagixisada riwaayad diimeed been ah oo ku salaysan qarax dhiig beeg shacabka jidadka maraya allah subxaanahu wa tacaala ayaa uga mahad celinaynaa in uuna waafajiyey annagoon u kala harin hoggaan ciidan iyo shacab inaan maanta khawaarijtii dhuumaalaysanayaan shacabka soomaaliyeedna ay ku naaloonayaan nabad ay ka quusteen sannado badan oo hore ammaan gaar ah waxaa mudan geesiyaasha ciidamada qalabka sida iyo kuwa difaaca deegaanada oo naf iyo maalba u huray inay dalkeenna xoreeyaan ayadoo amniga dalka la siinayo mudnaanta koowaad waxay dowladda federaalka ee soomaaliya u hurtay miisaaniyaddeeda inta ugu badan in lagu bixiyo xoreynta dalka sidoo kale waxaan garaacnay albaab kasta oo suurtagal noo ah si aan u tayayno ciidankeenna dhanka tababarka qalabaynta iyo hoggaaminta maanta wiilal soomaaliyeed ayaa wada diyaaradaha qumaatiga u kaca ee aynu kula dagaalanno khawaarijta soona daabulo oo soo qaada dhaawaceenna meelaha fogfog dagaalada ku gala ee ku dhaawacno waxaan howlgelinay ciidankeenna badda waxayna isticmaalaan tiknolojiyad casri ah mudanayaal iyo marweyn cadow waa xeelado badan yahay markii aan albaab ka soo oodnaba dariishad ayuu furtaa isku dirka beelaha faafinta dacaayadaha iyo abuurista khilaafaadka diimeed waa tabaha khawaarijtu ay rabaan inay ku sii noolaadaan markii ay ka quusteen goobihii dagaalka waxaan digniin gaar ah u diraynaa kuwa cadowga ku garab istaaga arrimahaas oo guracan ee aan kor ku soo sheegnay labo dhanka kobaca dhaqaalaha iyo dhismaha kaabayaasha haddii aan u laabto dayn cafiskii kadib dalkeennu wuxuu galay marxalad cusub oo aan diyaar u nahay inaan la ganacsanno caalamka kana shaqayno in aan ka kaaftoonno gacmo hoorsiga iyo inaan dayn kale qaadanno maanta waxay dowladda federaalk ee soomaaliya mushaar siisaa bil kasta dad ka badan 100,000 oo qof oo Soomaali ah oo isugu jira siyaasiyiin ciidan shaqaale rayid ah macallimiin dhammaan qarashkaas waxaa laga bixiyaa dakhligeena iyo canshuurta muwaadiniinta Soomaaliyeed uu bixiyo waxaan bogaadinayaa ganacsatada Soomaaliyeed iyo muwaadiniinta isu xilqaamay inay canshuurta bixiyaan ku dhiiraday diiday tahdiidaadka iyo handadaadda uga imaanaysa khawaarijta waxaa mar kale adkaynaya ahmiyadda bixinta canshuuraha oo la'aanteed aysan dowladdeena jiri karin maadaama aysan canshuuraha ku filnayn baahideenna dowladnimo iyo tan shacabkeenna waxaan
u guntannay in aan ka faa'iidaysanno khayraadka dalkeenna ilaahay ku manaystay oo ay ugu horrayso shidaalka oo la hubiyey inaan ka mid nahay kuwa ugu kaydka badan dunida maanta iyo khayraadkeenna badaha oo sidoo kale ilaahay nagu manaystay bilaha soo socda ilaahay idamkii waxaa la bilaabayaa qodista ceelkii ugu horreeyey ee shidaal ah ee Soomaaliya laga qodo waxaynu horumarinaynaa kaabayaasha dhaqaalaha oo ay ka mid yihiin jidadka garoomada diyaaradaha dekadaha oo lagu daray saldhig laga gano dayax gacmeedyada spaceport oo ah kii ugu horreeyey ee qaaradda Afrika laga dhiso waxaan shaki ku jirin in duruufihiina soo maray haddii aan ay qodobka saddexaad haddii aad u laabto kobcinta karaanka aadanaha human capital waxaan shaki ku jirin in duruufihiina soo maray ay dib u dhac weyn u geysteen karaanka aadanaha dalkeenna isuma dhigmaan himiladeenna fursadaha aan heli karno khayraadkeenna iyo heerarka aqooneed iyo farsamo ee maanta dadkeennu ay leeyihiin ayadoo culays amni uu jiro ayaan ku guulaysanay in la baahiyo tacliinta oo fursado waxbarasho la siiyo ubadka Soomaaliyeed maanta waxaan ku sii siqaynaa inaan gaarsiino tirada macallimiinta cusub ee dawladda 10,000 oo macallin waxaa barbar socda dhismayaasha dugsiyada macaahidda tababarka macallimiinta sidoo kale waxaan dib u noolayn ku sameynay xarumaha daryeelka caafimaadka gaar ahaan kuwa daryeelka caafimaadka aasaasiga ah afar xasiloonida siyaasadeed mudanayaal imarweyn laga bilaabo markii aan talada dalka qabanay waxaan go'aan ku gaarnay inaan mudnaanta siino xasiloonida siyaasadeed ee dalka loona dhaqaaqo in isbeddel mug leh lagu sameeyo qaab dhismeedka siyaasadeed iyo sida lagu imaanayo ama lagu weynayo mansabyada siyaasadeed ee dalka golaha wadatashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin madaxda dowlad goboleedyada gobolka Banaadir iyo madaxda xukuumadda wuxuu yeeshay 12 shir oo lagu gaaray go'aano badan oo masiiri ah waxaan ku dadaalnay in isbeddelka loo maro hanaan loo wada dhan yahay waana midda sababta u ahayd guulaha aan gaarnay inta badan xasiloonida maanta la haysto waxaa weli dadaal ugu jirnaa oo aanan ka harin walaalaha ka goos qabsaday inay ka qayb noqdaan geedi socodka xasilinta siyaasadda dalka haddana maqaamka iyo mas'uuliyadda oo lagu kabay odaytinimada iyo nabad doonaynta mas'uuliyadda heer qaran waxayna faraysaa inaan qof kasta oo wax tabanayo raadino waana ku sii soconaynaa waddadaas ilaahay idinkiisa waa mahadsantahay xildhibaan waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin uga dirayaa shacabweynaha Soomaaliyeed ee waqooyi maamulka cusub ee waqooyi bari oo ku guuleystay inay dhistaan dowlad goboleed ku timiday rabitaanka shacbiga dib u heshiisiintooda iyo isu tanaasulkooda waxaanan ugu baaqayaa maamulkaasi curdanka ah inuu ahmiyad siiyo sugidda amniga xoojinta dib u heshiisiinta maamulada deriska la'ah iyo fidinta adeegyada bulshada deegaanka baahida weyn ay u qabtay muddada dheer dhismaha maamulka waqooyi bari kama dhigna inay kala maarmeen deegaanada deriska la'ah dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay geed dheer iyo geed gaaban u kori doontaa wax kasta oo fududeynaya wada shaqaynta iyo nabad ku wada noolaanshaha deegaanadaas iyo kuwa deriska la'ah
horeyba u ahaa wiil iyo waalid xigto iyo xigaalo aan kala go'i karin marna. waxaan ugu baaqaynaa walaalaha inay u guntadaan nabadda, xaqiijinta amniga, xaqiijinta amniga fududayn kara isu socodka dadka iyo ganacsiga si guud ahaan nolosha dadka wax looga bedelo. walaalayaal, ka mid ma aha dhaqanka suuban ee Soomaalida ay leedahay in maxaabiis la kala haysto, balse waxaa dhaqan ah ragga dagaalka lagu qabto in la marasheeyo oo qaarkood loo guuriyo oo iyagoo dareemaya in la karaameeyey ay dib ugu noqdaan reerahoodii iyo degaanadoodii, taas oo keeni jirtay raggaasi inay noqdaan danjirayaal nabadeed oo u dhaxeeya degaanada. waxaan leenahay walaalaha inay xusuustaan aan rabnaa mahmaadii ahayd xasuustaa ma xiriisho, ee aan diiradda saarno berri oo yaynaan ku habsaamin shalay iyo wixii dhacay oo aanan soo celi karin. qodobka shanaad, khilaafkeenna annaga ayaa xallisanayna. walaalayaal, khilaafku wuxuu ka mid yahay nolosha aadanaha, wada nool oo wada macaamilaya, ha ugu sokeeyaano oori iyo sayigeeda. khilaafku ma xuma mana fiicna, waa ra'yi kala duwanaansho. khilaaf kelmadda haddii la macneeyo ma xuma mana fiicna, laakiin waxaa xumeeya ama fiicneeya sida loo xalliyo. haddii loo maro waddo wada hadal lagu gaaro heshiis, iyo haddii loo maro waddo lagu gaaro cunfi iyo colaad aan la garanayn meesha ay ku dhammaanayso, taasi waa waddadii aan ku habawnay ee aan qaadnay 1991. 30 iyo dhowr sano ayay nagu sii maraysaa inaan waddadii saxda ahayd ee shalay aan ka soo habawnay aan ku noqonno. sidaas daraaddeed asalku wuxuu yahay khilaaf hadduu yimaado inaanan la isku dayin in xoog iyo xabad in lagu xalliyo, ee lagu xalliyo wada hadal iyo wada xaajood mar kasta. khilaafkaasina soo maray wuxuu keenay inaan burburno, burbur dhammaystiran iyo faragelin shisheeyo oo aan dhammaad lahayn oo qaarkeed ilaa maanta ay taagan tahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala nooma celiyo meeshaa. taas beddelkeeda waxaan go'aansannay inaan goglo u fidinno siyaasiyiinta iyo hogaamiyayaasha bulshada ee naga ra'yi duwan si aan u dhagaysanno codka dadka Soomaaliyeed oo dhan, gaar ahaan kuwa wax dareensaday. waxaan dhagaysannay dareenkooda iyo tabashadooda, waxaana go'aansannay inaan tanasulaad ka samayno wixii dadka isku haynaya iskuna keenaya ayna ku wada jirayaan. waadna la socotaan shirarkii aan la yeelannay siyaasiyiinta mucaaradka ah, intoodii badnayd waxaan isku afgarannay qodobada masiiriga ee dalka maanta ka jirahay in hore loo dhaqaajiyo, oo ay ka mid tahay dhammaystirka dastuurka iyo in dalka laga sameeyo doorasho qof iyo cod ah oo ku salaysan xisbiyo siyaasadeed. baarlamaanka sharafta leh, mudanayaal iyo marwooyin, baarlamaanka sharafta leh waxaa in badan ka soo wada shaqaynay oo aad ansixiseen in madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya ay toos u soo doortaan shacabka Soomaaliyeed. hase yeeshee markii aan isbarbar dhignay inaan qayb ahaan ka tanasulno wixii lagu heshiiyey iyo inaan diidno, waxaa nala habboonaatay inaan tanasulno. waataan horay u soo sheegay, mushkiladda ma aha khilaafka oo ah kala duwanaansho ra'yi, ee waa sida hadba loo xalliyo khilaafka. walaalayaal, waxaan doorannay khilaafka inaan ku xallino wada hadal iyo is-afgarasho iyo isku tanasul. waxaan rajaynayaa inaad idinkuna nala aqbashaan haddii alla yidhaah. waxaan weli
daba soconnaa kuwa weli wax diidan ee tabashada qaba. waxaan kalsooni ku qabaa in bisaylka dadkeennu uu soo gaaray meel aan laga celin karin doorasho qof iyo cod ah. haddii ay weli jiraan kuwo qaba ama ku riyoonaya doorashadii dadbanayd, waxaan filayaa inay jawaabta ka helayaan malyanka codbixiyayaasha ah ee iska diiwaan geliyey gobolka Banaadir iyo kuwa iska diiwaan gelinaya degmooyinka dalka oo haatan si habsami leh uga socota diiwaangelinta, oo qaarkood habeen madow qoraxdu gabalku u dhaco habeenku u madoobaada ayagoo weli safafka ku jiro oo diiday inay safka ka baxaan ay beri soo noqdaan. xitaa rabitaanka doorashada qofkii cod ah ayay tilmaamo cadcad u yihiin inahaas aan soo sheegoo dhan. dalkeenna Soomaaliya waa qayb ka mid ah xiriirka caalamiga. haddii aan isagana wax ka sheego, dalkeenna Soomaaliya waa qayb ka mid ah caalamka. waan ka soo gudubnay heerkii annaga nalaga tashan jiray ama naloo tashan jiray. maanta talada adduunka ayaan qayb ka nahay. waxaan xubin ka nahay golaha ammaanka ee qaramada midoobay. waxaan leenahay mowqifyo cadcad oo ku salaysan danaheenna iyo damiirkeenna ummadeed. waxaan xiriir la leenahay dowladaha caalamka oo dhan, taas oo ku salaysan danaha naga dhexeeya iyo mabda'a ah Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah. walaalayaal, maalintii loo baahday inaan si adag wax u diidno, markhaati ayaad ka tihiin oo markhaati cad ayay ummadda Soomaaliyeed ka tahay mowqifkii aan gabashada lahayn ee aan ka qaadanay. marka ay nabad timaadana geesi ayaan ku nahay inaan nabadda taabo gelinno oo aan qaadanno. mudanayaal iyo marwooyin, walaalayaal, gabagabadii waxaa dalkeenna isgarab socda laba dhawaaq. mid waa kan sheegaya wanaagga dadka Soomaaliyeed, horumarka ay gaareen, caqabadaha ay ka gudbeen iyo meesha ay hiigsanayaan. kuwaas waa kuwa u dhimanaya xorriyaddeenna, kuwa qorraxda u taagan ammaankeenna, kuwa qarankeenna u huraya wax kasta oo ay ugu horreyso naftooda. dhanka kale waxaa taagan kuwo ku hadaaqaya ama abuura xumaha ee aan ka shakiyin hoogga iyo halaagga, iyagoo aaminsan in weliba haybad lagu gaaray karo sidaas. allah subxaanahu wa tacaala uma rumeeyo riyadooda. aamiin ayaan leenahay. shacabka Soomaaliyeed oo walaalayaal, waa inaan labadaas dhawaaq kala dooranno oo shacabkeena nabadda u doorno, weliba dhammaanteen aan ku naaloonayno. muxaafad iyo mucaaradba midkaan nahayba meeshaas waa dawga nagu habboon inaan marno. waa dhawaaqa horumarka, nabadda, dimuqraadiyadda iyo dowladnimada suuban. walaalayaal, kalfadhigeenna toddobaad ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya waa noo furan yahay.